وعشركين نوصلها how to use Windows Powershell ISE Command أما سيدا هو استعمال لهاد Windows Powershell ISE سو استعمال لهاد عشركان سو أركيسان أدو حنجونا عشركيني وعشركيني لباتنات ويان سو أركيسان عشركان مانتو وكسابسيها معاو وكسابسيها how to use a wildcard وحلي يرادو سو أركيسان markuu ugu horeyso waa taabgareynaysaa part of the command-ka ayaa taabgareynaysaa marka labaad waxaa press gareynaysaa tab keyga on your keyboard-ga taabanaysaa markaas wuxuu ku siinayaa command-ka aad rabtid adoo isticmaalayo wildcards ku dheeraa maayo markuu ugu horeyso ku dheeraa maayo halkaas ayaan dhigayaa waxaan tegayaa Windows Powershell-kan la soo baxayaa halkaas calaamada Windows Powershell-ka ku qoran tahay ayaan taabanaya markay ii soo baxda halkaas ayaan leeyahay hash ayaan leeyahay hyphen aan taabanaya s baan taabanaya kabacdi waxaan press gareynayaa tab keygaan press gareynayaa waa aragtaa sta wixii s oo dhan ayuu siinayaa halkaa waa arkaysaan wixii s ka bilaabo dhan ayuu siinayaa wildcard-ka sida loo isticmaalo weeyaan waa arkaysaa storage failure domain-ka wixii s ka bilaamo ayuu siinayaa waa arkaysaa blog wixii s ayuu ka bilaamo ayuu ku siinayaa wildcard-ka micnihiisa waxay tahay haddii aad s gelisid ama haddaa gelisid b waxa waaye ilaa hadda s baan short ka dhigay waa arkaysaa ama sa waa arkaysaa wuxuu ku siinayaa wixii s ka bilaamo haddaan ku socdo waa arkaysaa wixii s ka bilaamo ayuu siinayaa halkan wildcard-ka waxaa laga wadaa waa saa u isticmaasho koodka ama command-ka aad isticmaalaysid hadda waxaan geliyey hash hyphen s baan dhahay waa arkaysaa wixii s allah hadda s uu siinayaa wixii s oo ka bilaabanayo waa arkaysaan haddaan press tabkiga aan taabto waa arkaysaan disable waa arkaysaan waa schedule task wax la yiraahdo ayadana waxa weeye command asagana sidoo kale disable smp delegation-ka sidoo kale waa command ka socdo ama loo isticmaalo wildcard-ka ama tab completion-ka wax la yiraahdo weli waa arkaysaa storage-ka shayga sidoo kale halkaas haddaa enter dhaho baan taabto enter ayaan leeyahay waxaan hoos u soconayaa laba mar ayaan hoos soconayaa opposite ama sidii kale aan u dhigayaa halkaas ayaan u taabanayaa hash aan leeyahay hyphen aan leeyahay hyphen aan taabanayaa halkaas ayaan ku garaacayaa ama ku taab gareynayaa service ayaan leeyahay service markaan dhaho waxaan taabanayaa ama press gareynayaa tab keyga on my keyboard-kaan taabanayaa waa arkaysaa debug service uu siinayaa get service oo hadda kahor aan ka socda uu siinayaa new service ayuu siinayaa waa aragtaa wuxuu siinayaa restart service ayuu siinayaa waa arkaysaa resume service ayuu siinayaa waa arkaysaan waa wax koodkan command-ka haddaa baritid ama isku daydid waa u isticmaali kartaa shortcut adoo isticmaalayo wildcard wax la yiraahdo setting service uu siinayaa ama set service waa arkaysaa start service uu siinayaa waa arkaysaa stop service uu siinayaa waa arkaysaa marka waxaan ka wadaa wildcard-ka saasaa loo isticmaalaa cashirkan waa cashirkeenii 22aad weeyaan wuxuuna ka saabsan yahay wildcard-ka sidaad u isticmaali lahayd haddaba haddaad galaaska ku cusub tahay subscribe-ka noo saar like-ka taabo share garee comment ka bixi comment-kaada waa noo muhiim weeyaan